Arooskan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay arooskii qarniga, waxaana lagu qarash gareeyay lacag dhan 600 oo milyan oo dollar. Waxaa laga yaabaa lacagtan badnaanteeda markaad maqashay inaad aad u yaabtay. Arooskan waxaa ka soo qayb galay dad badan oo caan ah oo iskugu jira jilayaal iyo siyaasiyiinba. Arooskan looma kala hadhin. Haddaba muuqaalkan intaanan bilaabin, fadlan haddii aad ku cusub tahay Facebook page-keenan Wardi Cali Official, nagu soo biir oo follow-da saar saad uga mid noqoto asxaabta kulan ee la socota muuqaalada xiisaha badan ee aan mar walba soo geliyo page-ka. Muuqaalkana like-ta saar, asxaabtaadana u sii share garee. Mahadsanid. Arooskan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay arooskii qarniga. Ninka Hindiya ugu taajirsan, wiilkiisa oo lagu magacaabo Ananti Ambani ayaa guursaday gabadh lagu magacaabo Radhika Macharti. Gabadhan oo ka soo jeeda qoys ganacsadayaal ah oo ka mid ah bilyaneerada ugu qanisan dalka Hindiya. Arooskan waxaa ka soo qayb galay dad badan oo caan ah oo iskugu jira siyaasiyiin iyo jilayaalba. Waxaa lagu qarash gareeyay arooskan lacag dhan 600 oo milyan oo dollar. Waxaa laga yaabaa lacagtan badnaanteeda markaad maqashay inaad aad u yaabtay. Haddaba qoyska gabadhu ka soo jeedo waa qoys ganacsadayaal ah oo shirkado waaweyn leh oo ka mid ah bilyaneerada ugu qanisan dalka Hindiya. Qoyska uu wiilku ka soo jeedana waa qoys taajiriin ah. Sidaa daraaddeed ayuu arooskoodu u noqday mid qaali ah. Haddaba arooskan waxaa ka soo qayb galay dad badan oo caan ah, waxaana ka mid ah Shah Rukh Khan iyo xaaskiisa Gauri Khan. Sidoo kalena waxaa ka mid ah Ranveer Singh iyo xaaskiisa Deepika Padukone. Sidoo kalena waxaa ka mid ah Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt. Sidoo kalena waxaa ka mid ah John Cena. Haddaba sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xafladan arooska ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Ingiriiska. Sidoo kalena waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin badan oo dowladda Hindiya ka tirsan. Haddaba arooskan looma kala hadhin. Arooskan wuxuu socon doonaa 3 cisho. Waxa uu arooskan ka dhacayaa magaalada Mumbai. Haddaba gabadhan lagu magacaabo Radhika Macharti waxaa dhalay qoys ganacsadayaal ah oo ka mid ah bilyaneerada ugu taajirsan dalka Hindiya. Waxay gabadhan wax ku soo baratay New York, kadibna waxay ku soo laabatay dalka Hindiya iyadoo doonaysay inay maamusho ganacsiga waalidkeed. Sidoo kale ninkan Ananti Ambani waa dhaxal sugaha qoyska. Waxa uu ka soo baxay jaamacadda Brown University. Haddaba arooskan looma kala hadhin. Haddaba dalka Hindiya qiyaas ahaan sanadkii waxaa loo dabaaldegaa ilaa 10 milyan oo aroos. Qiyaas ahaan 80% waa aroosyada dadka Hinduuga ah. Dadka Hindida ah hantidooda 5 meelood oo meel aroosyadooda ayay ku bixiyaan. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh asxaabteeda qaaliga. Muuqaalkan like-ta saara, asxaabtiinana u sii share gareeya. aad baad u mahadsantihiin. Waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.